السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السود وهذا وحان مانتا روا إنان إني كشيكيو أمان مصيبة كل عضي أمد الصومالية ميل أي جوكتبا إنا لله وإنا إليه راجعون ساد أوكتيم أما أرتامبا أما مانتا أذكور هيسان وربهينتا مقالة مقدشو وحا ضب حوغان كدعي إسكويسكا بنادر هولوذاق meelahaas ayaa suuqii dadkii ganacsatada ahaa ee muslimiinta Soomaaliyeed ahaa ayaa dab xoogan ganacsigoodii qabsaday waxa waa musiibo waad ogtihiin malweytana inuu dab weyn oo aad iyo aad u weyn inuu ka ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa samir iyo iimaan inuu naga siiyo oo dadkii lahaa oo maaragta calooshooda u xiro badal khayr qabana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu na siiyo ilaahay idankii annaga iyo intii muslimiin oo dhan goobtan weeye wiilka yarkaan hooyadiisa ayaa gadahayay aniga waa ka maqnaa xaafadan jiray xilli dambe wuxuu xeeriyo fandhaal kala dhaceen oo maxaan ku wixii oo dhan gubteen aan maqlay waa imid hadee meeshiina sidaanay u taallaa waa u jeediin waxa dhib ka dhacay annaga kaliya naguma dhicin dadweyne oo dhan uu ku dhacay ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo boogadhayo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa maxaan ku iraahdaa inay ummadda ilaahay u gurmadaan oo maxaan ku dhibaatadaani ku dhacday aniga kaliya ma aha dadweyne oo dhan ay ku dhacday ilaahay subxaanahu wa ta'aala badal khayr qaba hana siiyo haday wiilasheenni noo nool yihiin oo dadkeenni noo nool yahay carway ahayd carwo dhar lagu gadahayay ahayd oo maxaan ku iraahdaa wax walba yaaliin ayuu shay oo dhar yaalay raashin ma oolin laakiin inta kale waa taalay waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa badal khayr qaba inuu na siiyo wiilasheenniina ayagoo noo caafimaad qaba ilaahay iyo dadkeenniina aan helnay hadda maxaan ku iskama warhayno dad wax ku gaaray aan garamayno laakiin annaga un hadda wiilkii aan meesha dad ma shalay casarkii ahaa hantiilayaal oo nolol fiican haystay ayaa nolol maanta aan haysanin oo dabkii uu halakeeyay uu baabi'iyay hantidoodii waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun اللهم اجرنا من مصيبتنا واخلف خيرا منها إله مصيبة نقول عضي إله هيو نركب أيان لنا هي أو وحكة خير بدن أو بدل كذا إله نسي أيان لنا هي صومالية وحد أكتهين ومدة الصومالية ميل أي جوكتبه إن ضل خودي وضل هذا أي شوان أو نولال بدن أي كجرتو وحان حسوسها نين مال ماها كميدا أيان مال كوكولانا ميل نمكاس نين waxay ahaayeen nin jarmal ah ayuu ahaay oo cadaan ah marka wuxuu yiri waxaan la yaabanahay uu yiri Soomaalida noloshu Ilaahay uu siiyay nolosha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay iyo qaabka ay kuna u dhaqmahayaan ayaa aad iyo aad ula fajacsan ayuu yiri marka dabaq baan saarin hoosteeda intuu saa u fiir wuxuu yiri kaliya waxa ku filan bi hal warshada oo loo sameeyo oo intaas oo qof oo boqolo qof ay ka shaqeyn karaan bi kumaankum oo qof ay ka shaqeyn karaan marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaa leenahay ma asami musiibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala ummadaasi Soomaaliyeed ee halka ku basbaashay hantidoodii maartay ummadda muslimiinta ee wali masaakiinta ee dawlad la'aantu ay ka jirtay ee dawlad caawin waa artay hadda fiiriya waxa ay ka socda dawladdii iyo dadka shacabka intay isugu yimaadeen ay dhammaan ay u caala yihiin way u taag waayeen waa loo taagshay dabkii baa u taagshay ilaa hadda kale ugu socdaa wakaasi ay wad garanaysa markaa dawladda hadda xoogan oo hadda ay Ilaahay ku ronaayay maartay ma haysano waliba hadda wuxuu ku soo aaday xilli maartay kala guur oo labada madaxweyne ay xilkii isku wareejiyeen waliba laakiin dawladda ay si fiican u taabagelin ayay ku soo aaday dabkan وقرنيسا مركا ومدى الصوماليات ومصيبة دبت تالا أو دبت تاغن أو مركزتا هايستا بحاي يالي بحاد اوغاتا بحاد اوغتين إنو كان عيق وحوتية دا حريحان دا ديب دبكي وينا آدك وينا دبكي مسلمين تا هالكا قناعسي كوهستي إني أو شالو كلا هانتيليال أها ساكو كلا أي نقطي دب فقراء أو مارتي أو يي نقطين أو أيك هذا مركا أباهن إن لقعان قبطو haddana suuq weyne Hargeysa waa heen loo yaqaan asagana waa kii asagana ka dhacday dabkii aan ogaa ee dami waaye muddada habeen iyo maalin iyo intii Ilaahay inkastoo subxaanahu wa ta'aala dadkii dawladda kililka shanaad ay u soo gurmatay iyo waliba ay iskaashadeen dawladda maamulka dawladda hoose ee Somaliland ay iskaashadeen
ilaa markii dambe ya allahu ilaahay subxaana wataala ku damiyey oo dabkii ood ogtii hadda nin laka sheekeynaynin maantana waa kaa artay hadda waa kana isagana waa ka dabka ka socda magaalada muqdisho iskooska banaadir holwadaag uu ka soco isagana waa iyadana waa masale iyadana la yaab leh waxa muslimiinta Soomaaliyeed daba dhigay dabka tirada badan ma dad xaasidiin oo si gaar ah ayaa jira mise ilaahay subxaana watacaala ayaa garanay xikmada asaga garanaya asaga maadaama asaga dunidu uu iska leeyahay xikmada asaga iska leh marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee meesha ku basbeen hantidooday in la soo gacan qabto oo muruq iyo maal iyo maskax lagu taageero oo lagu gacan siiyo ayaan leeyahay waa musiibo weyn ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa musiibadana daba dhigatay ee muslimiinta Soomaaliyeed daba dhigatay ganacsatadooda inuu ilaahay subxaana watacaala oo ka qabto oo ilaahay subxaana watacaala u boogadhayo maxaa yeelay kulli waxaan isleeyahay kulli waxa suuragal ah inay koronto ay ka dhalatay ama uu qof sigaar meel ku tuuraa iyada laga yaabo suuragal inay tahay ama qof meesha shay ku karsanayay birtikadiisa inuu asoo dabka nool uu kaga tagay marka kulli waxaan isleeyahay dab ninkuu ku gubtaa ayaa laga wareystaa wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka laba jeer god lagama wada qaniino Soomaaliyay waad u jeedaan dabka ina daba dhigtay dadkeena ganacsatada ah daba dhigtay marka waxaan in aan ku boorin Soomaaliya ku boorin lahaa inay sameeyaan sidii ay markii ay meelaha goobaha ganacsiga ay ka galbanayaan inay dabka ka jira ay damiyaan ama ay baktiyaan si ay maartay dabkaas u kacay dabku waa cadow nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dabku waa cadow iska damiya marka qaarkood nabigu wuxuu ku tilmaamay alayhi salatu jiirka ayaa dabka wuxuu sameeyay wuu qaadaa markaas uu si mariyaa marka guryaha meelaha marka kushka ama baakadaha waxaas uu taabsiin marka jiirka kale waa xasad weeyaan ummadda muslimiinta ayuu xasad ku yahay waxay ku leeyahay wax sababaha uu dilka ku mutay jiirka todobada la dilahay uu kamid yahay saadarteed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ayaa leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed halka joogta ee dabka oo hantida uu basbeelay inuu maartay